السلام عليكم walaalahayga qaaliga asxaabtayda qaaliga aad baan idin salaamayaa maanta waxaan idin wadaa digaagaas oo fil la'aan la sameeyay qalaylka bilaa saliid siduu egyahay yaa dhanaanka macaanka maasha Allah si fiican u eego ka si fiican u eega alaabtan waxaan ku leeyahay haddii aad sacaataynayso qado iyo kugu filan intaas hadaad cunto sawarkaaga dhinac ka saaratid maasha Allah yaa waayo wax saliid ah laguma shiilin sidaan u sameeyay insha Allah ila socda waxaan u baahanahay xabaddan oo chicken soo qaatay wadinka ujeeda waan soo dhaqay taankaas kuma filna waa inaan mar labaad haddana dhaqo markaan googooyo laba gobol oo isla eg ayaan ka dhigay diirkana waan ka qaaday diirka hadaad doonto jeceshahay waad ku daynaysaa laakiin anigu diirka ma jecli waad ka arkay xabadda diirka waan ka qaaday nuska kalena diirka waan kasoo qaadayaa weydinka ujeeda diirkiisaan uga saaray xabadda digaaga wuxuu noqdaa haddii si fiican slice loo gooyo 8 gobol buu noqdaa anigu waxaan ka dhigayaa 8 iyo haddii wax yar oo jarjar iga soo haraan diirkaana waan ka bixinayaa diirkaas anaga iskuma fiicnin dadka qaar baa jecel marka uu shiilmo jagac iyo dhanaan buu noqdaa laakiin aniga waan ku iswisaa ma jecli hadda waxaan sameynayaa spiceski aan ku darayay waa kuwa spiceski aan ku darayay saad u jeedaan tuuntii shiidnayd weeyaan taas waxaan kaloo haystaa halka ku haystaa maaji kii powderka ahaa kaasna waxa weeyaan chicken masala hadhow baan tusi doonaa boxkiisa kana waxa waaye xawaash buurbuur filfil yar baan halkaa ku haystaa halkaana xawaashka dhuudhuubkaan ku haystaa tuunteeyana waan idin sheegay intaas waxaa kaas chicken masala aan ku daray wax yar baan ku daray waxaan khalkaasaan u baahanahay hadda khalkii baan ku daray hal qaadaan ku darsaday marka haddii waan isku wada qasayaa hadduu iga yaraado waan isdhawli waa qalayl waan ku kordhisanayaa qiyaas uma baahnid khalka waad ku darsanaysaa khalka bakteeriyadoo dhan buu dilaa maasha Allah dhadhan uu u yeelaa cuntada wuu iga yaraaday haddana qaado kalaan ku darsaday waad ujeedaan igu filan yahan malaynay hadduu iga sii biyo kuma daraysid biyo khalkan biyo uga dhigayaa cusbana kuma daraysid waayo maraq digaaga isagaa cusbo leh haddaad maraq digaag haysanina cusbo ku darso weydinkaa arkaya waan diyaarsaday chickenkiina si fiican baan usoo dhaqay khal baan ku dhaqay iyo biyo kale slicena waan u dhigay hadda waxaan bilaabayaa markaa inaan spiceski mariyo gobolka ugu horeeyaan soo qaadayaa si fiican sidii inaad alaab maaragta dhaqaysad camal baad ugu ruugaysaa si fiican baad waxaan kula u dhexgelinaysaa midi baan soo qaatay waan ku sarsarayaa laana waxaan rabaa lafta iyo dhuuxa inuu dhanaanka ka galo waad ujeedaa saas farta u dhexgelinayaa si fiican waa inuu waxaan kula xawaajigu u galo waxaan sameynayaa xabadaana waa aniga mariyay meeshii oo hilib buuran la waa inaad sartid mididaad ku saraysaa si waxaan ku leeyahay dhanaankaas iyo xawaashkii wax walba waxaan ku leeyahay uu u dhex galo saas yar baad ugu saraysaa midida ma goynaysid waad ujeedaan mar labaad baan idinku soo celinayaa fiidooga mar labaad baan idinku soo celiyay saan idiin sheegay si aad u fahantaan chickenka slice xoogaa laaleeg baad ka dhigaysaa xabadda u horeysay waan soo qaadayaa waa breastiga chickenka magacuu leeyahay soo maaha gobolkiisa kan waa qaybta breast waxaan ku leeyahay hilibka chicken breast mididaad ku saraysaa waayo hilib weyn buu leeyahay qaybtaasi laftiisu way yar tahay saasaad xawaajiga u dhexgelinaysaa u jeedaan gacanta saan ugu
si fiican baan waxaan kule gacanta ugu riixayaa oo dhex gelinayaa. kana waa qaybtiisii kale, waa breastkii una isagana waxaan ku leeyahay waa kaas mididan isagana ku jarayaa oo isaga laftirkiisa sidii marka hore aan tusay isna waan jarayaa, xawaashkaan marinayaa iyo dhandhanaanka iyo maasha Allah kulli intaa ii taalo oo dhan si fiican baan wada marinayaa. kulligood wasasaan ugu dhammaynayaa, mididaan ku sarsarayaa, xawaashkaan si fiican u dhex gelinayaa. taasna waa lugtiisa aad arkaysaan, iyada laftirkeeda waa inaad midida 2-3 meelood aad ka sartid ood saa u dhexgelisid ood u jeedaan. qaybta kalena waxaan ka diyaarsaday kaarood iyo baradho iyo basal oo si yar waaweyn u googooyay, bahalkaana igu diyaara. marka isagana waan tusi doonaa insha Allah. marka digaaygana rabaa inaan dhameeyo marka hore aan si fiican waxaan ku leeyahay xawaashkiisaas iyo wixiisaas aan ku dhamaystiro. sidan iminkaan u sameynaysid waxaad u samaysan kartaa kalluunka isaga laftirkiisa, malaayga saas unbaad isna u marinaysaa xawaajiga. waxaad kaloo ku samayn kartaa hilibka, magarate hilibka uma baahnid inaad ama ku karisid wafo hilibka haddaad pressure cooker haysatid saa xawaajigiisa markaad u marmarisid wax yar oo saliid dhibic ku siinaysaa, biyo yar wax yar oo biyo ah ilaa 7-8 qaado oo biyana waad ku shubaysaa, ama adigu waxaan ku leeyahay hal koob wax ka yar. pressure-kaad u dheereynaysaa si fiican isagoo dhindhiimay oo kaale araga buu ka soo baxaya. pressure-ka dad haysana disigaaga yaa dad ku haysanaysaa ku karanaysaa. marka dad pressure-ka haysan ama ovenka hilibka ovenka ama pressure cooker kun baad waxaan kule ku samayn kartaa haddaad rabtid inuu kuu jilco. kalluunka waxaan kule uu jilicsan yahay iyo digaaga sidan yar khafiifka baad u karsan kartaa. waad fahanteen imika waan dhameeyay yaa intii u dambeysaan wadaa. haddana saxankan kusoo wada wareejisanayaa alaabtayda oo dhan waad ujeedaan. saxankan ku wada wareejistay. intaa kadib waxaan u baahan tahay wax yar oo saliid. aniga waxaan isticmaalaa olive oil, taasaan isticmaalaa kuma badinayo, hal qaadaan ku darsanayaa, hal qaado hal qaadon baan ku darsanayaa. waad ujeedaan intaas igu filan. intaas igu filan. wax yar oo meel dheer waayo waxaa iga yaraa maraq digaaga xoogaa aan isdhahay waa yara dhanaan male. waa kaas baalkaasaan ku dubayaa. horta saliid yar baan marinayaa iyo baalkaas haddaad haysan isku daboolmaya maqligaaga caadiga baad ku samaysanaysaa, daboolna waad ku xiraysaa. yaa dhibaato ma aha, qasab maaha inaad kan haysatid. maqligaagaad ku xiraysaa, afkana waxaad kaga xiraysaa aluminium. ma garatay baradhadii iyo weydinka arkay aan idiin sheegay aan jarjaray maraq digaag baan ku darayaa isagana, isagoo cusbo kuma darayo. maraq digaag baan ku daray yaa qalaylkiisa waan soo dhaqay, waan soo qalajiyay. marka maraq digaagaas bis baan rabaa markaa inuu dhex galgalo. waad ujeedaan. hadda waxaan bilaabayaa digaagii inaan waxaan ku leeyahay maqliga aan saaro weydinkaa ujeeda saasaan u saarayaa. qaybta waxaad hooseysiinaysaa hilib kale, qaybta laftale waad korreysiinaysaa. aan ku dhamaystirayaa. baradhada hal meel ma gelinayo, waa inaad saa uga sii siftid macal basasha macal kaaroodka. intii la haleegay seeskooda waad ujeedaa ma yaryara, waa sees meel dhexaad ah. xabadii baradhada ee roonaydba waxaan ka dhigay 2 intaan u kala gooyo baan 2 usii kala gooyo, marka 4 bay noqdeen. yaa haddii baradhadu xoog weyn lahayna waxay noqonayaan 8. 2 iyo 2 8 bay noqonayaan. marka dhanaankaasna waan ku darsanayaa waayo kale biyo yar baan ku darayaa, waayo digaaga waxaan u baahanahay inuu bislaado. sidan kuma bislaanayo digaagu
marka waa inaan biyo yar ku shubo dhanaanka oo dhan waan ku wada shubtay waad u jeedaan khalna waan ku dhaqdhaqayaa wax yar oo khalan ku darsanaya wax dhibaato dhanaan badan ma yeelanayo waayo waxaan ku leeyahay dhanaankiisa waan qiyaastay idinka u jeeda marka sidan kuma dayni digaaga rabaa inuu ii bislaado biyaha soo qaadanaya imika kaas biyahaas waxaan u baahanahay ilaa 7 qaado qaadadii koowaad wataa qaadadii labaad qaadadii saddexaad qaadadii afaraad qaadadii shanaad tii lixaadna wataa bes 7 baan ku daysanayaa waayo haddaad biyo ku daran hilib halkan digaagani ma bislaanayo waa inuu biyo helo uu ku huuro waad fahantay malmalaynayaa biyo yar uu ku huuro waa inuu helo daboolkoodan jik ku siiyay dabkana waan saarayaa yaa dabka yaan xoog u boynaanin yaan xoog u yaraanin dab meel dhexaada la rabaa yaa dab meel dhexaada baan waxaan ku leeyahay saarayaa tusoo kaas yareeyay mana wabadno mana yara adigu waa meel dhexaad wax yar ka weyn maandhaha hadda saas ahaanaya waan kusoo noqonayaa siduu noqdo xoogaa baan ka maqnaanayaa waan soo noqday hadda waa kaas biyihii liqay hadda markaa waxaan bilaabayaa in aan rogrogo xagga kale u rogo xagga kale way guduudatay macal bardhada macal karadka waa inaad rogtid waa inaad ka taxadirtid already chickenka hadda wuu bislaaday digaaga wuu bislaaday marka wuu kaa jabaya bardhada way kaa jabaysaa waa inaad waxyaabo afdhuuban saas ugu taagtaagtid aniga markaa midigaasaa ii taala wax kale ma hayso waa qaabadaas dhaho ku samee wuu jabayaa yaa lama rabo inuu kaa jabo uu kaaga dhigo meesha waad u jeedaan halkii dambe soo wacasaatay yar waa ka taxadiraya waa inaad rogtid bardhada waa inaad rogtid kaaroodka waad rogaysaa kulligood waad wada rogaysaa kabacdi daboolkaad u dheeraynaysaa mar kale hadda already waa bisay laakiin rabaa in uu xoogaha uu guduud noqo uu shiilmo baan rabaa way u jeedaan wax yar kadibna bardhada hadday intaas kusii jirto ay waa burburaysaa markaasi aanay iiga jajabin wax yar kabacdi adigu daqiiqad ama daqiiqad aduu 2 daqiiqo wax ka yar baan kusoo noqonaya bardhadan ka guraya ay jeedaan waxaad arkaysaan waa halkii qaado aan saliidaan ku daray yaa digaaga laftirkiisa baruur buu leeyahay baruurtiisii uu shiilmay waqti asaga markaa saliid dala marka waa ay jeedaan saliiddiisa saliid kale kuma maantaa siinin waa ay jeedaan hadda waan rogay markan waxaad samaynaysaa dabka waad yaraynaysaa already biyuhu way laqaan hagaabas inuu guduuto waan ka tegayaa haddana waan ku soo noqday bardhadii waan ka gurtay yaa waayo iga jabaysaa inta badan bardhadii iyo basashii iyo wixii dhan waan ka gurtay iyagoo guduutay oo kaala araga hadda digaagii wuu haaf guduud wayaan mar labaad baan haddana rogrogay waxaan rabaa xoogaa inuu isku yara shiilmo waan ka dhigay hadda digaaga saasuu soo baxay qalaylka waad u jeedaan bardhadiina wataa yaa qado khatara dadka ma aragtay isduubaya sidaydoo kale xabadaada laftaada digaagaad qaadanaysaa asalaatadaadana waad qaadanaysaa dhag intaas qado